gudoomiyaha gobolka Murudijeex Professor Axmed Maxamed Cadaad ayaa ku guuleystay go'aanka gaadhista iyo soo afjaridda khilaaf maamul oo hareeyay dhaamka mataanaha ee degmada Faraweyne ee gobolka Murudijeex kaasi oo muddo soo jiitamayay horena go'aamo uga soo saareen mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland iyo maamulka degmada Faraweyne kulankani lagu shaacinayay go'aamada lagu soo afjaray khilaafka dhaamkani oo ka qabsoomay xafiiska gudoomiyaha gobolka Murudijeex ayaa waxa goobjoog ka ahaa xogahayaha gobolka Murudijeex xagaasimaha amniga ee gobolka mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda biyaha Somaliland iyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Faraweyne iyo xubnaha kamid ah iyo wakiilo ka socday xubnihii uu ka dhaxeeyay khilaaf maamulka ee dhaamkaasi khilaafkiisu soo tiijamayay fayskiisii u horeeyay waxaan golnay bisha Ramadaan maalinka xiriid baan golnay maantana waa fayskii u dambeeyay gabagabadaha saasan soo afgoynay hadalkaygu maanta wuxuu ku soo ururay ku daarayhun in khilaafkii sida ay xarunta gobolka Murudijeex oo nagu hogaamiyay barsaabku aan ku soo gabagabaynay runtii waxa muhiim ah oo ku dardaaraya maamulka ceelka waxaan inaga iska leh inaynu wixii aynu haysano ilaashano heshiiska iyo go'aanka aynu isla qaadanayna sidiisa loo fuliyo waxaan ku darayaa haddii arrinkaasi maanta aynu u fadhinaa ay wax ka soo noqdaan aynu goobjoog iyo markhaatiga ka wadanahay inaynu tallaabo kale oo dowladnimo aynu qaadi doono oo aan mar dambe laga wada hadli doonin waxaan halkan ku cadaynayaa khilaaf in badan soo jiitamayay in maanta la gabagabeeyay annagoo dhan waxa weeye degmadii oo gudoomiyaha ku-xigeenka joogo suduwihii wasaaradda biyaha agaasimihii wasaaradda biyaha arrintaas horseedna uu noogu yahay gudoomiyaha gobolka anigoo markaa ku hadlaya waxa jira laba xubnood naga maqan oo waxa weeye maamulkii ceelka shaqaalaha ka mid ah anigoo ka wakiila markaa nimanka waxaan halkan ka cadaynayaa waxa weeye Khadar Cabdisalaan Sheekh iyo Shuhur Dayb Sheekh weeyaan labada nin maqan anigoo ka wakiila markaa nimankaas magacaygu leeyahay Sabax Madiman waxaan ku cadeynayaa inaan ku qanacsanahay heshiiska khilaafkaasi wuxuu u dhaxeeyay dadkii maamulayay xubnihii maamulayay ee wasaaradda horumarinta biyuhu ay geysay oo deegaankana ah ayuu khilaafkaasi ka taagnaa marxalado badan buu soo maray khilaafkaasi mar wasaaradda gashay mar degmada gashay aakhirkii xalkii wuxuu noqday iyadoo aanu haddaanu nahay gobolka Murudijeex annagu aanu inta badan ku fooganahay xalinta khilaafaadka ee bulshada dhexdooda ayaa hawshaas aanu galay waxaanu tix raacnay oo aanu ku ayidno raacnay qodobadii hore ay wasaaraddu soo saartay horumarinta biyuhu waanu ku ayidnay waanu ku raacnay waanu la xalilay xalkii aanu keenayna dhinacyadii isku hayay way aqbaleen dadka isku hayay waxa weeye shaqaalaha afar shaqaalaha Mustafa Axmed Iimaan baa kamid ah Khadar Cabdisalaan baa kamid ah Axmed Siyaad oo Xasan baa kamid ah iyo Shukri Dayib Sheekh intaas ayaanu ku heshiisiinay iyaga maamulaya iyaga si siman u maamulaya iyaga lagu ogyahay waxaan u sheegayaa bulshada reer Faraweyne iyo agagaarkeeda in arrintaas aanu soo afjaray maanta sidaan gobolka Murudijeex uu ku galay lana soo afjaray